بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ka salaamayaa dhammaan wadada Soomaaliyeed saddeed iyo khibrad ka soo joogan waxaan si gaar ah ula hadlayaa sida soo kacay dhalinyarada ah ayaan doonayaa in dhiirigeliyo la dardaarmo waxaan furu rabaa barnaamij la yiraahdo galab iyo hal gabay waana si wada doonaa dilaha idmo dhalinyarada hidaha soo nooleynta hidaha iyo hal abuurka Soomaaliyeed anagoo ah waan si wada doonaa barnaamijka waxaan ku furayaa barnaamijka tii gabay la yiraahdo dhalanteed waxaan ku dhiirigelinayaa tii gabayga ah aniga intii ila mid oo dareenka dhaqanka iyo suugaanta iyo hidaha ila xambaarsan meesha reebana joogaanba waxaan la hadlayaana waa kuwa dhaqankoodii iyo afkoodii iyo suugaantoodii dayacay oo meel xun mariyay waxaan ku bilaabaa sida tan tii gabayga ahayd dhalanteed dararahan bawatan andugan gabaygi dheraaye balandheeli tiro maanta buu i dhandhaamayaye dadka wayga dhow yahay ninkaan dhaqan wadaagnaye sidii neef dhukaan qaba waxaa sida taani dhuubay dhafooradu waxay ilaa goteen dhunina u diiday dhaqankeennima dhaawac moo dhalintii didene dhajis bay ka doorteen gooyidhayda ka caddaaye dhinacay ka xiiraan timaha mana dhaameyaane dhuruqdhaaruqoo kale dhammaan way dhuteenayaane dhexda iyo waxay wada xidheen dhunta shaatigaaye dhaqanuu nin kale leeyahay dhabugu fanaane oo dhandhaan sidiisii ayay wada dhaqaaqeene oo dhandhaan sidiisii ayay wada dhaqaaqeene ninkaa yidhiise dhuubaan bartoo dhuni cuni maayo dhabankeeda goortaan arkiyo habu dhaqaqeeda isagiyo kuwa dhiga hindiga waxisma dhamane labaaduba dheelaalow hurday dhabu maalayeene dhakafaarka qaarkii marbaad dhalan daayowdaaye iga dhiirankaasiba markaan dhuuxay hadalkiisa dhadaadiyo dabayshana marbaad dhibicu mudaaye dhalanteedka qaarkii marbaad dhaan u raarataaye dadka wayga dhow yahay ninkaan dhaqan wadaagnaye wax dhaxaan dhurwaayada tusoon dhabugu qayshay qudhugaan dareensii lahaa shilintaa dhugaysa oo dhidhiitibaan mari lahaa nacabkaa dhudaya oo dhidhiitibaan mari lahaa nacabkaa dhudaya afartaa intaan dhidaabu tolay caynkamaan u dhuujay afar kalena waa dhiiragelin faalla dhoomoc weyne ujeeddada dhigeeyow haddaan dhabuga falloodo ku dhiirada afkiinnii dhinto dhabugu hasawa ka dhaabeeya dhoodaan sidii oo dhabugu hiisha ku dhaqaaq dhambaallada ku qora dhimay warkeenniye iskoollada kuwaa noo dhigtaa kuma dhaqmayeene iskoollada kuwaa noo dhigtaa kuma dhaqmayaane kandhigaasi dhagar weyn ka galay dhoobadaana saaray dhuni bay ka raaceen afkay dhabulahayeene dhuni bay ka raaceen afkay dhabulahayeene maxaa keenna hoos loogu dhigay dhimay waarkisiiye dhallin yariyo waayeel maxaa loogu dhuugan waayey dhabbooyinka in lagu qoro maxaa loogu dhiici waaye dhabbooyinka in lagu qoro maxaa lagu dhiici waayey ninkaa yidhi sadheehan maalaya candhadoo dhawac kaaga yaalo wardheegana waraaba ka cuna dhugiyo amxaaro iga dhiirankaasiba markaan dhuuxay hadalkiise dhirihii cullaan jiray iyo aan dhaclaa hadoono
dhigtiiyo dhammaysanee haraar dhaxamaan araage dhigtiiyo dhammaysanee haraar dhaxamaan araage ummad waliba dhaqankeeda bay dhamugu fanaanee dhammaantiinba waa dhoohantiin dhagaxsiidiisii dhagihiinnu adakaa dadyahow dhiga laga miidhay dhaqankeenna aan dhowranno dhabugu naallono maxaa keenna dhaandhaan ka dhigay kala dhaantalaya maxaa keenna dhaandhaamayo kala dhaantalaya dhuni raac maxaa naga dhigiyo dhidarsiidiisiiye nin walibaa wuxuu sii dhigtuu dhabugu aayaye nin walibaa wuxuu sii dhigtuu dhabugu aayaaye sawdinkaa dhulkiinnii dayacay kana dhaqaqaya sawdinkaa dhulkiinnii dayacay kana dhaqaqaya dhoobad sawdinkaa dhulkiinnii dayacay kana dhaqaqaya dhooba ayu dhidiideen dad kale dhinacaa saraya oo dhiiranii ku joogo haddana dhalasha doonaya oo dhiiranii ku joogo weliba dhalasha doonaya inta ay dhallaankiiyo hooyadu ay dhibtoonayso dhulkeenniina uu dhacaanyaho nacabkuu dhudayo inaan dhergo oo aan dheef cuna sawigama dheeraa dhalaanteedka qaarkii marbaad dhanu raarataaye dhadadiyo dabayshana marbaad dhibicu mudaaye dadka wayga dhow yahay ninkaan dhaqan wadaagnaaye dadka wayga dhow yahay ninkaan dhaqan wadaagnaa waxaan ku daafurayaa tixda gabayga barnaamijkii ahaa galab iyo hal gabay oo si socon doona insha allah haddii ilaha idmo dhallinyarada hiddaha iyo halabuurkana aad baan umadcelinayaa waxaan ka codsanayaa dhallinyarada soomaaliyeed dhaqankiinna afkiinna iyo suugaantiinna dib u soo nomoleeya ma jiro oo lama helo waxaan loo dhibtoon lama helo waxaan loo dhibana lama helo waxaad doonaysaan ninka mukafiye gawaari caad iyo gabdhooda caasaa ku jirta inaad cirkadi ku timaado aad ku heshaan horumad ku heshaan ma ku helaysaan anaa idin leh wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh